السلام عليكم. halkaad nagala socotaan waa qadari naftaada asxaabta soo dhawaada raalli hala ahaado ayaamahan video ma soo gelinin mashquulkii iska batay ramadaanka dhamaadkiisa waaye insha Allah ramadaankan ilaahay khayrkiisa hana soo aadiyo ciid wanaagsan maadaama ciid wax yar ay ka dhiman tahay waxaan rabaa inaan ila wadaago buskud aad u fudud hal qasmo oo 4 buskud aad ka samaysan karto halkan waxaan ku haysanaa butter intaadan shaqada gudaha u galin gacmahaada soo nadiifso maxaa yeelay buskudkan uu fudud yahay gacantaada ayaad ku qarsan kartaa bararka waxaa loo baahan yahay wax yar inuu jilcan yahay si uu kaaga caawiyo inuu hadda bararkii waxaan ku darayaa sokor 2 sokor ayaan isticmaalayaa sokorta aan markii koobaad ku shubi waa sokorta caadiga shaaha iyo qaxwada iyo loo isticmaalo kadib waxaan ku shubayaa hadda sokorta budada ah waa kana sokoryaashii iyo bararkii waa isoo dhaxgeliyay kadib waxaan ku darayaa saliid mar allaala sidaad iga barateen cabirka hoos ayaan igu soo qorayaa kadib hadda waxaan ku darayaa baking powder hal qaando kadib halkan waxaan ku haystaa zabadi ama yogor ama caanaha fadhiga sida u taqaaniin buskudkan ukun dhan uma baahno insha Allah ayuu igu soo bixi doonaa kadib hadda waxaan ku darayaa 1 kiilo ama sida u taqaaniin bahasha oo markii xalwada la sameysanayo la isticmaalo kadib hadda waxaan ku darayaa wax yar oo ah vanilla kadib hadda waxaan ku darsanayaa burka insha Allah waa isdhex gelineynaa waa kana burkiyo soo khastay insha Allah hadda waxaan rabaa inaan ka dhigo 4 qayb qaybta koobaad waxaan halkan ku haystaa qumbo 2 qaando qumbo ah kadib hadda waxaan sameynayaa cajiinkii ayaan soo qaaday qumbaha ayaan dhex gelinaa haddana waxaan sameynayaa qaybtii labaad waxaan halkan ku haystaa kareem caramel 3 qaado saas ayaan isku dhex gelinayaa biskud kasta wuxuu yeelanaa dhadhan gooni ah waxaad u isticmaashay dhadhankiisa ayuu yeelanayaa halkan waxaan ku shubtay 2 qaando oo cacao ah waa kana asagana waa kana qaybta hadda sameynayo waa qaybtii qumbaha sidaan ayaan u soo kuuskuusanaynaa sidaas ayaa u soo kuusanaynaa kadib sidaas haddaba sidaa u jeedaan qaybtan waa qaybtii kareem caramelka aan ku darnay carrot camala u sameeyay maadaama ay guriga ilmo joogaan way iska jecel yihiin waa sidaas haddii aan mid kale nii tuso waad soo kuusanaysaa kadib way isku dhamaatay waa kana sidaan ayuu noogu soo dhamaaday qaybtan waa qaybtii qumbihii qaybtanna waa qaybtii kareem caramelka qaybta qumbaha markii aan kuuskuusay oo dhigay waxaan iga iloobay farta ayaan sas dhag ugu siiyay si uu duleel yar igu yeeshto hadda ovenka ayaan gelinayaa qaybtii aan wax dhan ku darsanin hadhow ayaad arki doontiin sidoo ku soo baxo insha Allah laakiin hadda waxaan sameynaa waan fidinayaa qaybtii kalena waa kana sidaas ayaan u soo fidsanay kadibna waad jaraysaa wax saas camal ayaa u baahan tahay saxanka ayaa ku sii tuuraysaa hadda qaybtii afraad oo cacao ku darnay ayaan sameynaynaa
وكنا كي شوكولات كأه هذا بس إذا وجدان صاص أيان وجرجري تبدأنا سحنك إن شاء الله أو بنت عيا جلنايا هذا بس إذا وجدان بسكوت كان واكي قنبها عن كدرني سيداس أيو نقص بحي هذا وحن كدرايا لوتوس وحو إجي هاي لوس كشيدا عمل لكن آذو جمعيني هاي وكنا وانصور دلال صدي بعن كشوبة إن شاء الله واسلا أركينا هذا بس إذا وجدان خيبتان وخيبتي لبعض وحن هلكن كهيستا لوس عن صوحة مسي وحير جدود عمل عن كسودي جاي وعن صوج جبيعي كدبنه مالملادة دي أيان صوخة بنايا بسكوت كركيس أيان صوص ومارينا كدبنه لوس كأيان سيدس وقدو الشبايا وكاسا إيش على بسكوت ما شاء الله هذا بس إذا وجدان كان واكيد شوكولاتكي كان وانكا هداي لها كاروت لكن كاروت عمل يمن نقولين ما دام سيدس عمل رجوع بالبلاك معنا ملهن هالكام حكوا هيستا دارك شوكولات أو صودا لاليي بس إذا أنا أخبطه وكاسا halkan waxaan ku haystaa chocolate cad oo soo dhalaaliyay marka waa kaasa aan isla aragno kadibna istakiin way bas ku dhamaatay وكنا هذا بس إذا وجدان وهل كيلو برأة أفر نوع بسكوت أيا لغا سو توري هل خصمه ما شاء الله إيش على بسكوت عيد ونكسن إلهي رمضان كهي نغا أقبله إن شاء الله يا رب كان وحاواي كي أنكو قصي كوكوغا كدبنا وحان مريم الملادو وان سكودجي iyo qumbo kana waa u jeedin woo qalalay waxa ka walwalina in oo maxay heeto waxa ay soo daafto waxaan ku shubay daydi kan waxiir ayaa u dhiman laakiin tiisa kaleento waa aragteen ilmaha waxaan amal way iska jecel yihiin hadee waa ka saaxiib please like share subscribe